mid jirta waxay tahay inaad noqon col hortiis jabiye oo suuqa aad sugatid ilaa uu boontiga kaaga imaanayo fursadu ma taqaanid xilliga ay baxayso iyo xilliga aysan bixinba sida ay tahay adiga markan waxaa laga doonayaa inaad rulkaaga sugatid tirada rulkaaga waafaqina inaadan qaadan taasi waa muhiimadda koowaad ee qofka laga baahan yahay traderka boqol jeer kumanaan jeer maalin jeer dib lagu soo celshana inta badan dadku ma ay sameeyaan waxaad ogaataa inta badan waxyaalaha keenaya qofka inuu qalqalo ama tirada fara badan qaato waxay weeyaan waa inuu las fara badan hadii aad las fara badan gashidna waxaad aakhirkii akoonka aad ku sameynaysaa in hawada meesha ka saartid marka sitaa ay soo dhicin traderka sugo ma taqaanid isniin ma baxaya talaad ma baxaya arbaca ma baxaya khamiis jimco xilligo suuqa traderka baxaya adiga ma garan kartid laakiin kaliya waxa laga rabaa waxay tahay oo adiga aad og tahay waxa weeyaan inaad sugatid oo suuqa aad sugitaan aad leedahay sugitaanku waa qodobka kaliya ee suuqan lagu joogi karo sugitaanku maxaa kamid ah marka waxaa kamid ah in adigoo aad ixtiraamtid rulkaaga sugitaanka lagu sheegayo maaha inaad wax lagu soo wada lagu keenayo fadhigaaga maaha suuqa soo imaanaysaa waxaad ka fiirinaysaa rulkaaga inta ka waafaqday haddaad ka heshay qaado haddaad ka weysin iskaga dhaqaaq waa intaa kaliya sugitaanka sidoo kale waqtiyada suuqa oo ilaanay ama gabagabo yahay oo weekend iyada kaleeto maalinta ugu dambeysa jimcada oo suuqa uu shaqeynayo maalintaasi suuqa waxaa laga doonayaa weegaasi ka dhamaaday muxuu kaaga dhamaaday inaad nood gareysid internet aad qaadatid iyo waxyaalaha kale ta laga baahan yahay iyo wixii qaladaad adiga runtii kugu imaaday inaad meel saartid sidoo kale inaad suuqa aad wax ka wadatid isku day mar walba qasamaha maalin walba inaad adiga wax ka wadatid laakiin ha badnaato inaad suuqa wax ka wadatid waxyaalaha ku sahlay inaad suuqa sii joogtid ay taasi sahlaysaa haddii journal aad leedahay haddii aad mar walba aad isla xisaabtamaysid maanta ma jirto nin maamulo ama nin ka sareeya inta qaba ku dhahay haddana maamulo isku ahada shaqaale isku ah inta wadaas wada ah marka waa caqabada koowaad ee qofka marka uu dhaleysan karo ama yareysan karo cid la xisaabtanta duu waay sidoo hore waxa walba loo dhaqmo waxaan aragnaa inta badan asxaab oo maanta lacag fara badan ku khasaariya suuqa oo isan korka ka saarnaynba aad u malaysid lacagahaasi in aysan isku soo dhibaatoonin oo iska soo siiyay marka waxaa la rabaa shilinka meesha ka baxayo inaad ogsoon tahay wax walba waxay leeyihiin way lagu baxsho teeda kale trade ku saxan hadduu asalka ka dhaco walwal ma lahan mana ka fikiraysid laakiin trade hadduu mar asigoo qaldan ama rulka aad wax kaga dhamiya aad qaadatid oo asalka ka dhaco maanta oo dhan waxaad taagananaysaa qodobkii maxaa u sugi waaye maxaa u yeeli waaye saa maxaa u dhici waaye marka taasay u dhicin mar walba marka trade-ka hadduu rulku waafaqo qaado hadduu rulku waafaqinna qasam waa hamba haddaad laakiin isqasabtid ay trade wax ka soo dhacso adiga laga leesanayaa oo adaa laga leesanayaa intaas leedahay faa'iido jiri yaa kasta laga qaadan marka taxadar muujiya agosto sidan ayay ku ilaatay leedinkii September waa bilaha ugu fiican ee suuqan wax laga qabsado iyo October November marka isku daya inaad bilaha soo aadanna aad xoog wax saaratiin wax qabsada noqotiin aad mahadsantiin salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guulaysta meel baa joogtaan